afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona. waa afartee waa geeridii, waa gabowgii, waa baahidii, waa bogtaantii. afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta. ma naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyey. markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi. xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada. yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima. dhimasho dambe arki maysaan. nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn. dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn. caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn. alxamdu lilah, ilaahay baan ku xamdinaynaa inaga soo qaybgeliyey kulankaa diineed inaan diinteenna macaan isku baraarujinno, oon iswaanino, oon isku nasteexayno. waataan ilaahay ugu dhowaanayno kulligeen weeyaan. salaadii maqrib markaan tukanay kulligeen waxaa laynoo jeediyey wacdi dhammaystiran. wacdigaasi muxuu ahaa? waa janaasadii aan ku tukanay weeyaan. kafaa bilmowti waacida. qofka waana waxaa ugu filan waa geerida. dad dhallinyar intaa la eg qaarkeyn ay xafadata kitaabillaahi ay yihiin, qaar culamo ay nala joogaan, qaar ducaada ay nala joogaanna janaasadaasi ilaahay waa waafajiyey inay ku tukadaan. khayr badanna waan u rajaynaynaa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a janaaza la hormariyey. markaabay saxaabadu janaasadii bay khayr ku ammaaneen. markaabuu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi way waajibtay. markaasaa haddana janaaso kalea nebiga la hormariyey. tiina shar baa lagu sheegay, shar oo naf xun oo acmaal xun ka shaqaynaysa inay ahayd baa nebiga hortiisa lagu sheegay. markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wajabat, waa u waajibtay. saxaabadu waxay yidhahdeen cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa yidhi maa wajabat, nebi allow maxaa waajibay bal noo sheeg. janaasadii horena khayr baad ku sheegteen buu nebigu yidhi, janna u waajibtay buu yidhi. janaasadii dambena shar baad ku sheegteen oo ayadana naar baa u waajibtay. ininkuna markhaatiyowgii ilaahay arlada dusheeda u joogay baa tihiin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. marka dadkaas masaajidka soo camiray inay wacdiga iyo waanada iyo nasiixada iyo baraarujinta ay dhegaystaan u yimiday ayaa ilaahay waafajiyey janaasada inay haddana salaadeedii ay ku tukadaan. waxaan u rajaynaynaa insha allah qofkaas inuu yahay ahlalkhayr insha allah dhahada. eheladeenna wixii naga dhintayna ilaahay waxaan uga baryanaa iyakana inuu qabuurahooga u nuuriyo, uu cadaabalqabrigana ilaahay ka badbaadiyo, innakana ilaahay khaatimada inuu hagaajiyo. ilaahay casa wajalla cibaadadiisuu adduunyadan inoo keentay. addoonkuna rabbigiisa laba unbuu ku caabudaa, mid saddexaad ma leh. laba shay haddii cibaadadeenna laga arko, cibaadadaasi insha allah waxay noqonaysaa maqbuula. al-ikhlaas, cibaadada aada cibaadaysanaysid waa inay kaa noqotaa ilaahay dartii. haddaad salaad tukan iyo haddaad soomi iyo haddaad qur-aan akhrisan iyo haddaad ummad wax u sheegi iyo haddaad diin baran iyo haddaad diin bari iyo haddaad dhaqaalahaaga diin ku bixin iyo haddii maaragtaane ummadaada aada waqtigaaga ku bixinba, waa inay cibaadadu kaa ahaataa alla dartii. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin. ikhlaas, camalka qabuulkiisu waxaa asaas u ah ikhlaas. camalka labaad ee la doonaya acmaasheenna inaan ku qabanana waa maxay? almutaabaca, inaan ku qabano dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. ikhlaasku waa laa ilaaha ila allah. mutaabacaduna waxa weeyaan waa muxamadun rasuulullah. ikhlaasku waxa weeyaan maaragtaanay waa توحيدكي ولا إله إلا الله وإيمانكي
mutaabacaduna waxa weeyaan waa cilmigii weeyaan ikhlaasku waa ka ruux weeyaan mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayana waa kal jasad weeyaan sida ruuxda iyo jasadku u kala maarmaynin ee mar walba labada iskugu baahan yihiin ayaa cibaadadeennuna labadaas asaas u ah laba shayna waa hadaf weeyaan hadaf inuu addoonku mar walba labada u isordhigaa khawfan wa tamaca haddaad cibaadaysanaysid labada ilaahay waa inaad ku caabuddaa cabsi iyo maaragtaane tamac rajo aad ilaahay naxariistiisa aad rajaynaysid mu'miniinta muttaqiinta ilaahay markuu ammaanayuu sifaadkooga ka sheekaynayay waa kii ilaahay ku ammaanee lahaa habeenkii dhinacoogu jiifka kuma raaga baa ilaahay yidhi yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici habeenkii halka dadka kale ay jiifaan ayaa ilaahay addoomihiisu habeenkii jiifka kuma raagaane in yar intay seexdaan bay marka dambena cibaadada iyo daacadda iyo baryada alla u soo kacaan cibaadada ay caabudayaan ilaahayna waxaa asaas u ah khawfan wa tamaca ilaahay bay ka cabsanayaan cadhadiisa ayay ka cabsanayaan tamacna ilaahay way ku caabudayaanoo naxariista ilaahay ee jannadu ay ka kow tahay bay rajaynayaan wa mima rasaqnaahum yunfiquuna baa ilaahay yidhi waxaan ku arsaaqnana way bixinayaan maalkooga haddii laga dalbo diinta ku bixiya la yidhahdana way ku bixinayaan dheecaankooga haddii la yidhahda diinta ilaahay ku bixiya way ku bixinayaan caqligooga iyo cilmigooga haddii la yidhahda ilaahay dartii u bixiyana way u bixinayaan wixii aan nicmad aan ku arsaaqnayna way bixinayaan baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala marka labadaa sifo waa laba sifo oo la doonaya qof kasta oo muumina mar walba qalbigiisa inay ku jirtaa khawf ilaahay casa wajalla ka cabso oo nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa qaaribuu wasadiduu waaclamuu annahu lan yanjuu axadukum bicamalihi qiila walaa anta yaa rasuula allah qaala walaa ana ilaa an yatagamadanii allahu biraxmatin minh aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam camalkiina buu nebigu leeyahay xidhiidhiya oo camalka saalixa ha kala goyn wasadiduu toosiya buu nebigu yihi camalkiina oo camalkiina waxaa ku toosisaan dariiqada nabiyi calayhi salaatu wasalaam dariiqada rasuulkeenna ku toosiya oo camalku hadduu sunnaha nebiga uu khilaafo gara maro camalkaas ilaahay aqbali maayo marka camalka in la xidhiidhiyana waa amar weeyaan ma ahayn marna tuko marna daa marna soom marna daa marna masaajidda kusoo xidhnow marna ka bax maaha waxaa la doonayaa addawaam axabu alacmaali ila allahi adwamuha wa in qalla ilaahay agtiisa camalka loo jecel yahay waa camalka uu addoonku uu daa'imo walow camalkaasi haba yaraadee markaa buu nebigu leeyahay qaaribuu xidhiidhiya buu nebigu leeyahay camalkiina wasadiduuna toosiya oo camalkiina waxaad ku toosisaan thawaabka ku toosiya itibaaca nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku caabuda waclamuu ogaada buu nebigu leeyahay inuusan midkiina camalkiisa ku nabadgelaynin qiila walaa anta yaa rasuula allah kolay adiga noqotana miyaa markaa buu nebigu yihi walow anigana ha noqotee camalkayga aad ku nabadgalaysaa is odhani maaye naxariista ilaahay baan rajaynaya inaan ku nabadgalo buu rasuulku yidhi waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtaane sidaa u cabsoonayay habeenada ka mid ah nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu qiyaamo leylkii u kacay aayadahan ugu dambeeya suuratu aali cimraan baa nebigeenna ku soo degay aayadahaasi waxay caddaynayaan ilaahay cadamadiisay bayaaminayaan bilaal baa markaa nebiga u yimiday markaa buuhi yaa rasuulallah salaaddii baa lagu sugayaa ee soo kac markaasaa bilaal wuxuu uhi nebiga indhihiisaan fiiriyey ilinta nebiga ka da'day ishiisa meeshuu nebigu ku sujuudayay ilintu qoysay markaasuu yihi yaa bilaal xalaytoole aayadahan qur-aanka ayaa dushayda ku soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatadabbar waxaa hoogay oo khasaaray buu nebigu yidhi aayadaha qur-aanka ninka akhristay ee tadabburi waaye tafakur iyo cibro ka dhex ku cibro qaadan waayey kaasaa khasaaray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar laaaayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard rabbana maa khalaqta hada baطila
سبحانك فقنا عذاب النار عبسي نبي إلهي كو عبدا يا عبسي عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء حديء وعبسوني وليه عمل كيغا كتلقى مايو لكن حريصت إلهي ما كتلقى ليا إمام الأنبياء دعادي سأقوب النيد نبينا لقى وريو كدو عيساني وحي هاي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلوبت بن آدم كقدين يو إله قلبك حق كسب هذه دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أهي دعوينك أقوب بدنا نبينا وكدو عيسي دعاءنا والله وريي يا دعاءنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعوينك أقوب بدنا النبينا عرب كيس كسو نقنقون يسي إمام الأنبياء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والنبي القرآن كإلهي وكشي يقولي ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وحلو بلن قاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مقام المحمود ما شاء قدر جدس الرئيس الجنة إن إلهي إسقى أدياري وكي نبي لها آذانك مركز مغليسان فقولوا مثل ما يقول المؤذن مؤذن ككذب هذا ابو النبي لإريد أوليه ثم صلوا علي آذانك مركز دما يا مؤذن كنا يقول صلي ابو النبي عليه الصلاة والسلام لأن مركز إلهي وسيلة ويدية من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة نكا وسيلة إلهي ويدية شفاعة إذا أيا حلالو بيسا وسيلة أيا نبي معنا يو حيري ومنزلة في الجنة ومنزلة جنة دحدة كنت الله لا تنبغي إلا لعبد من عباده وأرجو أن أكون هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة أقصر الرئيس جنة الله قالوا يانت أقود درجة الرئيس أدومها إلهي كمدا بقلي دونا وحنا رجينا يا أبو النبي لنا نهانقو أدون كاس نبي قاس مقام كيس إلهي القرآن كأوكو شيء isaguna ma aragtaan axaadiista saxiixa inoogu cadeeyay manzilada uu ilaahdiisa uu ku leeyahay ayaa ducadiisa ugu badan uu ku ducaysta ay noqotay yaa muqallib alquluub thabbit qalbi ala diinika marka khawfan wa tama'a innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba وكانوا لنا خاشعين بإلهي يري آل زكريا ري زكريا عليه السلام إلهي مركو أماني وحكو أماني إنا يا هايانك وخيرك ودقدقا عبادة ودقدقيان صلاة ودقدقيان وناق السميستي سي ودقدقيان إلهي الرالي قلنتي سي ودقدقيان ويدعوننا رغبا ورهبا مركينا عابديان إنا بريانا وحين بريان بإلهي يري جعيل إنا بريان عبسي إنا عابديان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بإلهي كوا أنك نخش عسن بهايين بإلهي تذكي إلهي وأماني يا قرآن كان لقو عدي يا أمان توده صفات كان لقو أماني وحكم ده طاعد ده ودك دقيين إلهي طاعد يسي ودك دقيين إلهي نوحي كو عبودين لبضا صفي كو عبودين عبسي iyo rajo goorma muuminka laga rabaa cabsida goorma si rajada laga rabaa cabsida qofka muuminka waxa laga rabaa waa intuu caafimaad qabo weeyaan intaad nooshahay ee caafimaadka ilaahay ku siiyay ee nabadgelyada aad haysatid ee naftu ay kugu jirto markana laga rabaa inaad cabsi ilaahay ku caabudo rajadana goorma la rabaa inay badato rajadu waxa la rabaa inay gaalib noqoto amarkee وأمرك سكرات كقبتي أجشوا أي كقصوا حاضرته مركز الله دنيا قفك مؤمن إنه يدعو إله أنو تجي وإله كريمة وإله رحيم أنو تجي رب جي وناجنا كلا كل مويانا وحهم كلا كل بما يوانو قفك مؤمن كمركز يدعو لكن أنت العافمات كهيسي اللي حياتك إلهي كل ما يستري إنه لشان أد هيستيت تطلب سنة يسد حدا نقطة الرجل كنول رجل كنول معصية هذا إسقي وقف كجرة هذا إلهي نحرس سر جيك ورما ما سعنيش أدو إلهي عبوديا أو صدقة بحنيا أو صوميا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة
أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بإلهي تذكرون ونكسنا وحا إلهي كو أماني ويصوميان صلاة دي لا إيمانيان زكاة دي بحنيان وحان كو أرزاقني بيديبيان حبنه جاي نقو أضيع أيام بإلهي يدي يكو هذا نقلوب تودو أي عبسون يسو أو إسله تلو أعماشا سبلو إلهي كما بأقبلين با يكو عبادي سنية أي هذا عبسون أيام يكو تقوى ديلي هذا إلهي كبقيان يكو صفقه هوري كجري إلهي كبقيان يكو ليلا ونهارا إلهي طاعدي سكود داليا أي هذا عبسون أيام رجدو قورما للربا قفك مؤمن كيني أتمادو وأمرك الله قبطال للربا إنو دالو هي ربي قيق وكريم ابن مسعود رضي الله عنه سكرات مركو أورذي عثمان بن عفان بصوب بوغضي مركاسو ويديو كويري عبد الله يو محاد أباهانتا هاي بليشيك بوكير هل كيكو قدرا ماذا تشتكي محاد كأشكتوني سامانتا بليشيك وهل كيكو قدرا وعلي ماشي يقدرا عثمان ومكو شيكا ذنوب تيدا يقدرا بولي ذنوب تيدا ابن مسعود مركابو كودي فماذا تشتهي هذانا محاد جعشا بلنو شيك إلا قفك مركو حنونسان يهلا بدنا لو ويديا موقت ورنيو هالكيكو قدران والله قاحيا يا نفس دادو محي دونيسا نفتادو محي دونيسا إنك ما أنت قفك لها هالكيكو قدران هالكو شيك لها ورا الكيكو شيك لها هالكو قدران اللي قاحيا يوم بفرتكو قبن هالكابا اللي قاحيا هالكابا اللي قاحيا ككلنا وحولي دكتور باكو يدي يسوق ما دكتور بان نفكو سوعليناي ابن مسعود وحو يري مركو عثمان وكو يري هالكيكو قدران وحو يري ذنوب تيدي باي قدران بودي مانت او دافay marka عثمان وحو يري hadana maxaad jeceshahay bali sheeg naftaadu maxay doonaysaa marka buu rahmat rabbi naxariista rabbigay baan doonaya buu maanta yaan doonaya naxariista rabbigay طمع waxa la doonaya طمع inuu bilaamo marka aad hatta qofku marka uu xanuunsan yahay la dul tago waxa sunnah in la yiraahdo la ba'sa tuhur la ba'sa alayk dibata kuma saarno ha cabsan ha walwalin xanuunkan miya waa lagugu meydhaya dambi dhaafaad ka helaysa ilaahay baad ugu dhawaanaysa darajaadkaaga kor lagugu qaadaya waad ka kacaysa salaama insha Allah dibata arki meesii waa qofka la yiraahdo لأن مركا قفك مركا ودمنا يانا ودشي سواحا لقول لقنا توحيدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده لما يداد ده تدادي ولا إله إلا الله ده تدادي واحد لقى يا شيطان كانوا سكة الأوتو سوق يدادو وما قال بانه مسلم بانه وعروا وقفوا كل انتبه أدونك سوقوا عرونا لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كين نقدمنا يبو نبي يري وحاد الله قنتان لا إله إلا الله مقاشية ويان isaga dushiisa ku dhahada kelmadaas soo markaa kaaga soo dabaceliyay isaguna kelmadaas haduu kelmada qofku markay ka baxaysa naftiisu ay noqoto kelmadaas waa kii nabigu lahaa jannu galay man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna wa fi riwayatin man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna haduu u dambaysa qowlkiisa kelmadaasina jannu galay buu nabigu alayhi salatu wasalaam jannadu markaas waa shayga la doonayo qofka adduunyada intuu joogo cibaadada ilaahay aad caabudaysa labada ku caabud tamac ilaahay naxariistiisa rajee oo jannadiisa rajee oo dambi dhaafkiisa rajee oo maghfiradiisa rajee oo ridwaankiisa rajee cabsooyo dhinaca kalena ilaahay caanadiisa ka cabso oo cadaabkiisa ka cabso oo waxaad mar walba soo dhigtaa ilaahay aad u tagaysid waa kariim naxariis badan weeyaan عمل كان مركا أنقبنينه مر والبا واحد كوبنين يسلب هذا الشيء معاصي مركا نقطنا نفط واحد اللي قعب سيا عذابك إلهي عمل ونكسن أو طاعة مركا نقطنا نفط واحد اللي هردق الثوابك إلهي عمل كان وكاسين يا قف يلا هردق النفط لا وذا أصلا بأدوك يلا معروف يا منكر معروف وواحد وناقة شريعة إنك أمر سنة التي مهدد
macruufka markaad qabanaysana janna la sordhiga waxa munkar shariicadu ay ka reebtay markay naftiga shaydaanku ku dhacay kuleeyihiina cadada ilaahay cadaabka ilaahay baa la hordhiga nafta dadna janna ilaahay markay noo ballan qaaday jannada allah ina geeyo amiin dhahada jannadu waa daar magac badan baa quraanka ilaahay ku sheegay inna lil muttaqiina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa inna lil muttaqiina fi jannatin na'im inna lil muttaqiina fi maqamin amin inna alladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula quraanka ilaahay tabaaraka wa ta'ala wa 'alayhi inta naarta uu ka warramay in la eg baa ilaahay jannada kaga warrama hadda isleekay aayadaha quraanka markii la baaday aakhirada ka warramaya lafdiga uu ku yimid al-aakhirah waxa la ogaaday inay 115 goor baa ilaahay yiri al-aakhirah adduunyada markay noqotana lafdiga adduunyada aayadaha quraanka waxa ku yimid magaceeda 115 jeer marka jannadu waa daar ilaahay tabaaraka wa ta'ala bini aadamku waxay ku raaxaysanayeen oo dhan lagu dhameystiray iyana galaya innal abrara la fi na'im dadka adduunka dusheeda ilaahay kaga cabsada ee ilaahay kaga baqa ayaa ilaahay jannada u diyaariyay daar salaam daarta nabadgelyada daarul khuldi daarta waaritaanka دار الحيوان با إلهي دارتي نولوشا وصاحبك أهي سديد مقع با قرآن كان لقو شايك الجنة وين إليه سديد مقع جنة عدن جنات النعيم جنة الخلد جنات الفردوس وكن نبينا لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس هذا إلهي ويدي سنيسان وضباهي أشيغان إسان بنبي قيدي فردوس إلهي ويديستا فإنه أعلى الجنة جنويك أيضا أقصر الرئيسة وأوسط الجنة أيضا أنا أقبر تميسم نبي قيدي وفوقها عرش الرحمن سقفقيق وحا هذا عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة وبيالك الجنة مرودنا آيات كبر قمام رسولك يدي فردوس الأعلى الله ينقيه فردوس تدكي جنة قيمة هيك قرتي وحا كملها صحابة محمد هويني مدو أيا نبي قلنا أوتي مدو مركا كعبا يسحنون كلا إلى هذا قلل كالصوحدة صوحتانك ودعي جرتي markaas nabiga u timid alayhi salaatu wasalaam ya rasuul allah waan suuxabay ku tir waan dhacaa waa xanuun aad u daran weyn xanuunkaasi allah inaga badbaadiyo dadku hayaan allah ka qaado waa xanuun qofku meelsha uu ku dhaco uu saka warqabin uu miir daboolsamaya gabigiisuba maankiisoo dhan baa tagaya markaas nabigeena u timid ay tiri inni usra wa inni atakashaf fad'u allah ta'ala li an la atakashafa ya rasuul allah jidadka ayaa ku dhaca waan suuxa dadna markaana marada ayaa iga baylahanto waa lay arkaa ilaahay ii weydiibay tiri xanuunka ilaahay inuu iga qaado maraduna ay iga baylahmin markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu in shiiti sabarti walakal janna haddaad doonto janna ayaan kugu haddaad doonto waad u sabri xanuunkaas oo janna ilaahay kugu siin doonaa innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajruhum bighayri xisaab dadka adduunyada dusheeda ku sabre ku adkaysta balaayada iyo masiibada la soo darista thawaabkooga janna ilaahay ka dhigaya أجركوغا بلا حساب إلهي سينيا هذا دونتنا وانكو دعين إلهينا عز وجل إنو كعافية حنون كابان كو بري مرقابيتنا وانسكن نغون إيكادي لأنه ويسون نغوتو نبي أوتمي دي مرقابو نبي عليه الصلاة والسلام وحي كتري يا رسول الله وانسكات كيساني إلهي الجنة إيويدي بي كتري بس اسكدا مربا هدي جنة لغو هلايو هلقا كدف لكن مد إلهي إيويدي meeshaan doon haas kaga dhace marada inay iga baylahmin bas iyadoo miyir daboolantay oo maankeygii uu tagay
ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxaa laga yaabaa gabdhaheenna qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jidhkeega halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhira zamaan nebigaa sheegay laba qolo adduunka iman buu nebigu yidhi soo socota qolo jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdho maaragtaane ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nebigu yidhi kuwaa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa labadaas sinfi buu nebigu leeyahay hadda arki maaye waa rag budad bay wataan oo dadka dariiqada intay ka kaxeeyaan ayay la dhacayaan oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdho maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun mumilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalluucinayaan buu rasuulku yidhi sidaa isku qalqalloocinaysa ragguna sidaa usii eegayaan ula qalloocsamay mid baa lagu yidhi war ha eegina indhaha gallaabo wazayannaaha linnaadiriina buu yidhi laa xawla walaa quwata illaa billah jannada gali maayaan buu nebigu yidhi kuwaasi carfiga jannadana heli maayaan jannadana markay carfigeega waxaa la helaa 500 oo sano markay meesha loo socdo qofka u jirto gabadhan muuminaadee saxaabiyadee madow ayadoo maankaygii iyo miyirkaygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nebiga ku tidhi xanuunka haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas inta ilaahay weydiiye xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas allah raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nebiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nebiga soo gaadhay buu ku odhan jiray alaa uriika imra'ata min ahli ljanna haweenay ahluljanna ama ku tusaa markaa bay odhan jireen haa haweenaydaa madow ee halkaa maraysa waa ahlaljanna buu odhan jiray ibnu cabbaas cataa ibnu abi rabax buu u tilmaamuu ka yidhi cataayow haweenaydaa madow soo ma arkaysid haa waa ahlaljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna unbaa la sheegay hawa dumarkii jannada gelaya hamaa la sheegay khadiija radia allaahu canha umma almuuminiin mubashira biljanna keligii jibriil calayhi salaam ayaa samada uga yimiday markaa buu nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wax kale ma sido allaha salaamku salaam ka wadaa ayuuna u sidaa khadiijata alkubraa radia allaahu canha umma almuuminiin buu u sidaa uu yidhi yaa muxamed umma almuuminiin khadiija allaha salaamkaas soo salaamayey waxaana laygu yidhi u bishaaree qasri jannada ku yaalla ilaahay u diyaariyey ummu anas binu malik rumaysaa am rumaydaa ayadana waa mubashira biljanna oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ku yidhi ummu sulaymey xalaytoole jannada ayaan galow ilaahay i tusay adoy hor socdana waan ku arkay buu rasuulku ku soo yidhi faatuma ina muxamed calayhi salaatu wasalaam waa iyaduna waa mubashira jannada waa loo bishaareeyey oo nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi faatumata bintu muxamed sayidata nisaa'i ahli aljanna inantaydaa faatuma buu rasuulku yidhi haweenka ummadda nebi maxamed ee jannada geli doona waa gabadha ugu darajo sarraysa ugu barwaaqa badan buu rasuulku yidhi sumaya radia allaahu canha iyaduna waa ahlaljanna oo iyada iyo ninkeedii iyo inankeedii cammaar markuu nebigu dul yimiday ayakoo magaalada maka dhagaxdeeda iyo jagaceega lagu cadaabayo waa markay diintu qariibka ahayd ee maka la cadaabaya mu'miniinta ee qurayshi ay cadaabaysa saxaabada rasuulka ayuu nebigu kor yimiday sumaya waa ummu cammaar iyo odaygeygii yaasir iyo inankeygii cammaar oo la cadaabayo markaasay yidhaahdeen addahru haakadaa yaa rasuul allah sanadka oo dhan
أنكم مدبك يا عذاب كابا كجرينا مركب النبي يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر أبو النبي يقول أتكيستا أبا الكينو إنك واجنة ويانا هذه الجنة أي مغلان وحلي وحد دباتة الدنيا للصود درستون ويهالمامين يكو ويبقتا هوين يدا مدوئك حنون كي قبتاك ويدع عيسى صوحدين بيلا هاي لكن مركو النبي كويري هداد صبر لهي جنة إلهي كوكو بدل لها اسكدا بيكو تري بس هالكي سكو داف ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي ينوها عليه الصلاة والسلام أهل الصفيه مقالة المدينة قراني قرابة أن كلها إنين كمدة أيوها مساجد كالنبي قلنا مؤخرة دي سدا بأيو دقنا أهل الصفوه وحي هايين رق مال مدن أي أفكوغا أين انهلجر عنتا أي قليان أبا هريرة كمدها markay nabiga ag fadhiyaan baa la yiri hatta awradoodu sidaan u muuqan marada yaraysitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yiri iyagoo awradooda nabiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nabiga u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiru nabigu siisiya laba timira maanta aad ma ku qadayn lahayd barwaaqan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukriga inagu yar maanta laba timiru nabigu u dhiibay ahlu sufiya war Abu Hurayra labadan qabso war Rabiica labadan qabso war fulaan labadan qabso Abu Hurayra Allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay markaa uu nabigu igu yiri lima rafa'ta hadhihi ya Abu Hurayra xabadan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaas uu hooyadii baan u geenayaa buu kay markaa uu nabigu hooyadaana annaka kuugu dhiibaynay iska cun buu kay Abu Hurayra waana maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaa xadiista aan inta badan aan sheegayno oo isaga wariyo inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu galiyay diinta uu gaajooday diinta uu huray wuxuu jeclaa inuu magaalada Madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nabi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebay ilaa qiyaamaha ربيعة مركا رقصوا كمدها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وحويري إساقا كشاكين يا هبينك مرقو نبيكو صوكعوا عليه الصلاة والسلام إلا أقلدوا مركا الزمن قاسي أقلدوا بحدو بسقل اللقو حاجودو يتواليد ملهين بنانك مقالة مدينة اللو بحجري مقالة مدينة بحالي بحولا بدن بيلهين مركا أبو يري ربيعة nabiga ayaan u soo qaadi jiray buu markaa cadaygiisa iyo biyaha weesadan u sii diyaarin jiray buu habeenkii Madiinatul Munawwara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa caadi ma qabowgeega markaasaan u keenay nabiga biyihii weesadii iyo cadaygii dana xaajadiisii uu nabigu soo gutay inta nabiga la socdaa buu waan way ilaalinaya nabiga moogta sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu soo noqday buu arkay Rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nabigu ku yiri Rabiica salni maanta waxaad doontay weydiisay buu caawa nabi maxamed ba hadal kaale ku salliya ya Rabiica salni ya Rabiica waxaad doontaa caawa sheego biyaale hadalka Muhammad alayhi salatu wassalaam wa nabi ducadiisu mustajaaba ay tahay والنبي أود ويا شيء جد ويا جد بويا جد والنبي إلهي أوصي تأييدات هي معجزات ضميرك هذا الجسوم مغلى يا نبي محمد ضميرك والنبي إلهي أود وحوق لي هدور الله بورت إلى والك كقاد إلهي بورها وكقاد إلها مقالة مكبة لي والنبي تبي ربيعو شجعه وحدونيس واسكن نقول يكاد النبي الله هل قابو فريستي نكن ونبي محمد كله يا باهي هذا عاوي ايش وان نين مقالة المدينة أقل كمله جاك كمله قرابة كمله قرين كمله
meeluu wax ka cuna ma haysto hadiyadda nebiga loo keena ayuu nebigu ahlu sufahna uu wax ka siiyaa maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira hadday helaan bay iyo abaal ku qabaan ninka baahida ay hayso ayaa nabi maxamed fursad intuu siiyay uu ku leeyahay yaa rabiica waxa doonta caawa sheego salli ii sheega caawa waxa doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka murafaqataka fil janna yaa rasuul allah wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay inta ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaka inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko inta ilaahay ii weydii say nabiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuul allah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay al'aana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonayey nabigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaad wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu yidhi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasuu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaada ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad i weydiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nebigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar nuuceeya waa daar ilaahay baa dhisay tabaaraka wa tacaala dhagaxda laga dhisay buu nebigu sifeeyo wuxuu yidhi labinatun min dahabin wa labinatun min fidda labadan dhagaxee jannada laysduldhigee laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nebigu yidhi midna lacag buu ka samaysan yahay ahlaljannuhu jannada dhexdeeda buu nebigu yidhi way cunayaan way cabbayaan wakhtigay cunayaan xad ma leh wakhtigay cabbayaanna xad ma leh way cunayaan way cabbayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaakatan midna yeelan maayaan buu nebigu yidhi cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmay ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriga loo dhiso ayaa tuwaaleedkiisana si casriga loo dhisaa iminka carabtuna tuwaaleedku waxayba u taqaanaaba bayturaaxa aqalka raaxaday u yaqaanaanba baad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo 100 sano kumayaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo khaakatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeega xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto war maantii maxaad soo cuntay waxbaa kaa uraya xagga uka yaa allah
daacada jannada buu nabigu yidhi waa misk udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabbayay mee ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyoah intaabaa hoostaada maraya markaasaad cabbaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmeyga ayaad u baahan oo kaadibaa ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu yidhi dhidid buu noqonayaa dhidid cunadiina daacay noqotay udgoon sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaabay ahlaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay bedilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way bedilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogii xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbedelay kalarkiinni waa isa soo bedelay waa ini sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay ininkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa waa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmey geli maysid ma seexanaysid daraarya habeen waad iska ciyaariyo tuman insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galayse muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mid a faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yare madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye
حور العين تدون تدو اسكو داونيا مركز اسكو ايغيا وجهيغو اخرسنيا وحا كو قرن نحن الراضيات فلا نسخط انكو وحانا هي كون نينكو غرالكا او وليغود انا عدونين ونحن الخالدات فلا نموت انكو وحانا هي كوي وليغود جنده كواريايي اي دمشا انو صاحب نقونين ونحن الناعمات فلا نبأس انكو وحانا كوي الله او نعميي بلايا يا بوسيا دباتا انا اركين طوبى لمن كان لنا وكنا له كنوع هذا النن أنا نكون حاصل نقولنا اللي بنبي ليه ابن عباس الله رالي كان نقول يسقي به به مؤمنك بنك القيامة كتاب كيس قعنت مديك مركز لقصيو واتن آيات القرآن كإلهي كل شيء وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إهل كاكو كوانا دون قاد كوها يستماها إهل كان الدوية قاد كوها يستو ابتلاء باللقوسي اختبار واللقوكو إيغيا إني إلهي طاعد يسكو سيجيان يينا طاعد إلهي أتكفو لسد باللقوكو إيغيا لكن إهل كاكو رنتو وحويان وكمالك قيامها مؤمنك قعنت مدي كتابك مرقا لقصيو حسابي رو فضل لحسابيو مركابو أقدوما يابا إلهي يري إهل كيسي أو سوغيا أيو حقوق أنقون يابا إلهي الباب كجنة دي جوغاني كسوغيان بالليل الباب كي كسوغيان كتاب كيسيبو قعنتي مدكا قاتي حساب فضود باللفودي دي حساب فضود وامحي لما بعد بارن بو قيسي لما بعد هذه لا بعد بار وخطر إلهي با أسطوري وأن حريستي سيبو هويي أدوان بالا سو كليوبي دونا بنك قيامة بو نبي قويدي ولورن دونا أديك الرب با كوية رأيه سوكع مرقاسا إلهي عز وجل سترقي سا إلهي هويني دونا مرقاسو إلهي أدونك أولا هلايا هذالك أدونك يا ربي جيسا دحمرا يا مخلوق مقل مايان ملايبتو مقل مايان مقربينتو مقل مايان واللقا قرينا يا وحا إلهي قرسين دونا ذنوبتي أدونك دوشيدا أدونك نوكو قرسني با إلهي وشيك دونا مرقاسو إلهي ورندونا أدونك يجيو ذنبي عين كاس يا عينك أها إما لنهبلايا هالك آتكو سميسين محسوسا تهي مركز سولي هاي ها مركز إلهي ورندونا أدونك دو شيدين وانكو أسطوري ما أنت نواكو دم بدافي كتاب كيسا قعنت مدين لغا سينا يا لأنه حقا يا جنة وورد يا مركز الله ينقدك قواس مهدان دم بالله نمو نقجرا مي معصومين منهم دنبي ونقدر عيا لكن نحريست إلهي باللارن إلهي نحريست إسار رجيننا أمر والبكقوسن مينو دات كان كقودين من الرحريست إلهي دات كان هي كقوسن مينو مومي كمركا كتاب قال سيو إهل كيسيبو كنا غنيا ابن عباس رضي الله عنهما يا يري متكستو كتابك قعنت مدق لقسيي حورادي سيبا يريد او تاغانو سوغيسا مركابو دايمونيا دايمشدو او كليا ايا قادنيسا ليدي 7 سنادو بس سنه عروسك habeenka ugu horeysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo sama oo eegi kartaa war maxaad naga eegay ku oran indhaha faraa ka galin xana ya يعني ما بهليليسد بادونك دوشيدا 20 دقيقه قروح انت لا ايغو لا ايغا ددك ادونك جوغا الهي ما بسينبا فمحاضو ملاين غبدة 7 سنه اداونيسد قروحديدي جمالكيغا ابن عباس وحولي لكن ايا داون دونا ما تقانا واكا ادونك انتو جوغو محارمتا اندهيسا كلابتا كاسا حور العين تداوشديدا كراحيسن دونا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والدايمون ساسو والدايمون مؤمنكم 7 سنوات تعانقه ويعانقها وكبودي مركع ينو يكسو بودي معانقه ورغورينتا معانقه كليه بودي ابن عباس هدنا 7 سنه كله هدنا هيسن بودي صدا ونو هيسن مركو جنة أرك نعيم تيدي أفر شيء
oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadanka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahla aljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahla aljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaada markaad tukanayso ee mu'adinku uu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabtan bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannadaa ishorkeen qur-aan baa lagu leeyahay kaale akhri jannadaa ishorkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannadaa ishorkeen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nebigay ku yidhaahdeen nebi allow magaalada maka annaku aan ka imanayn ka soo baxnay maa u zamzam baan ku haysanno iib ma ahayn halkan biyuhu waa iib magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysanno markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabataydi muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyahaa yar baan iibiyaayo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiiyeen 30,000 oo dirham cuhmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf buu u yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka hadda labihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah yidhi markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahow raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni iljanna indheergarata dadkaasa ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 sanee soo socda isbeddelka geeska afrika ka faalloodaay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisiiyo yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waaya caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waaya caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno ninbaa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn ma iyadoo ooyeysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ye
الزم رجليها ثم الجنة بنبي ثم الجنة لقت هذا قبصه جنة هالكبات كقلي طاعبنا إلهي مركات قدنا يسوى واحد سرق يسوى جنة معصي مركين نفتي الشيطان كوكو يران أي شيطان كي نفتو أي كورادان إلهي عاص ودم بيق السماء ووحا كودع مركين نفتي الشيطان كوكو يرادين وين هذا سرق تا إلهي عرضي سرق إن بطش ربك لشديد إن ربك لبالمرصاد إلهي كو حسابتن عرضي كعبسي نفت هذا مركز الله بدا سال دنيا إلهينا كو عبدنا طمعا خوفا وطمعا عبسي هي الرجو عبسي دا غور ما للربا وانت العافمات كهيسد اد نولوش هيسد اد اليرada اتهي اد امنك هيستد إلهي عبسي كو عابد مال انت دير حنوشتنا اما حالد ادق اي كوكو تمادو إلهي الرحمة دي سرجي مركز وحقوسن وحاتر هذا نفت هذا واحد كتر هذا ربي جاي وانه حريص بدنه ودقسي بدنه وكريم ويان إلهي وكريم قال الله شقين يسوى كريم سيدي نكي حشك أسعدي مرأة اللي مركو إحرامك أحدي أيوم مغلي يقول لبيك اللهم لبيك مركا دوش يسال لقلي لا لبيك ولا سعديك حشك آدو سعوت الله ما أقبل سفر كا حمان قادتين إلهي كا أقبل ما يسكجوك هذا البعض شكل الدواء ما دي سجد قداشي سجوجا هذا الكيلا مقشيي كيبا كوير يا شيخ هذا كحجنا ديبو لبيك اللهم لبيك مركا ترى هذا بالجواب تماد مغلي مركا ماد مقشها وان مغلي ما هذا المقشي هذا المغلي وعد تضبي الله باتسنو أيان إلهي قريجي سو قصدي مرة اللي مركان حشك أنص إحرامك صو حدو إيه تلبية صوب لا بابا لا لبيك ولا سعديك بالليلية هي وواحد دو الشيء ده لقليه هي حشكاga cimradaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay ka aqbali maayo baa leeyahay iska joog baa leeyahay haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaqiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xagee kale oo taga balisheeg buu adaan tala ka qaadana balisheeg buu kay ma jirtaa meel kale wuxuu ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin أنا إلهي بان السعود حقي سبوري مالك الأمة السعود كقوسا ما إلهي الرحمة ديس وكريم والرحيم الرحمن وحليم وستار عبت نردم مقرنة يا مات دول قاد بدنه ورمع عدالة إلهي بان كنت جوغ الدوية دبالي دول ستر إيا دول قاد إلهي بان كنت جوغنا ستر أستر كيس إلهي بان أستريا إلهي بين نود القادنية لكن هذه عدالة اللي لها أعماش الجركنا ما تكسوف ليس هي عصيان كان إلهي عاصنا إنه هي سدا معاصده والضوين كنا مقاحيه هنا قريه هنا إلهي اللوغو عاصنا يو دقيقة أدون كينا كنا ولا نحق ما يلنا المانت تضبي الله ما تسنى المغلى يا أبو يري واللي يقول جوابه يا واللي إليه هي إلهي حشاك كأقبل ما يسكجو دمان جوغا كجوغي ما يوان سعدا قدوريا ويمدي ضواف كيبو بلابي سعيكي مركو دميي ايا دوشي سلغا دواقو ليدي لبيك وسعديك وانكو اقبل لي وكا اجيبني تضبي الله باتكي هوري حجدينا الهي وكا اقبل لي بلغو يدي كيبا لما قشيه مركو رمغلاي مركا ابو الشيخ والله اقبلي عودا الباب كي سمعينا الباب كلو قراعينا ما جرتبو كيدي ما قوسنين أنا أقول إلهي بان هيسنا مركا إلهي الرحمة ديسا كقوسن ما إنه دات كان كقوسن ما إنه بل دوان ترغيبين إنا وانو حريسنا إنا دعوة آيان وقوير إنا دعوة مركا أمد وقوير إننا وانو دبرين إنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصرين حديث كاسدو كوي مدي نينا عربية أيا مساجد كنبي قد حديثة عورديسي انتو الله صوبحي أيو مسجد النبي دحديسا كو كاديي صحابته مركاسي كو ياعين مركا ابو النبي عليه الصلاه والسلام مه واركا جوجسدا مركا ابو النبي صحابتي كجوجيي مركا ابو النبي كو يري واركا جوجسدا كاديسا كو غوين كاديدا كو غوينينه كجوجسدا
halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay ii kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi uu fadhiisiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagalee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyoo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida hore uma arkin dib dambana u arki maayo wuhi macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi saxaabadiisii buu nebigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithum muyasiriin bucithum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin buu rasuulku yidhi bictha walaqad bacahnaa fi kulli qaryatin nadiira wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula bictha kalimatu lbictha qur-aankay ku taallaa waa alfaadda ilaahay si gaara markuu uu tilmaamayo nebiyada erayada nebiyaduma loo adeegsan jiray ijtabaa istafaa iyo bictha waa kalimaadka nebiyada khaaska u ahaa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu ku leeyahay innamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin in kale maahine adduunka layniima soo saarin haddii layni soo saarayna rabbulciza wuxuu inii soo saaray inaad ummadda xaqa u dhibrisaan ee layniima soo saarin inaad ummadda markaad xaqa u gudbinaysaan aad ku adkaysaan ribciya bna caamir saxaabigii jaliilka ahaa rustum markuu u tegayna waa kii ku yidhi rustum allahu ibtacahanaa ilaykum annaka ilaahay baa nookii soo saaray buu ka yidhi war qofka muslimka walaalayaal muslimow waa inaad fahamtaa ilaahay baa ku soo saaray ilaahay baa ku doortay oo maxaa ilaahay kuu doortay diinta islaamka inaad ku dhaqanto ood barato ood ka shaqayso oo diin ku noolaato oo diin ku dhimato ayaa adduunyada lagu keenay hadafkaaguna u noqdo inaad janno hesho ansaar markuu nebigu la mubaayicoonayay ansaar waxau nebigu ansaar ay ku wada ballameen baycat alcaqaba markay dhacaysay yaa rasuul allah annagu waan ku qaadanaynaa bay ku yidhaahdeen madiinat almunawara waan kula tegaynaa sida naftayada cadowga aan uga difaacno een ilmahayaga cadowga aan uga difaacno ee reerahayaga cadowga aan uga difaacno ayaan adigana cadowga kaaga difaacaynaa waxaanan ognahay haddaan magaalada madiina kula tagno caalamkao dhan dadka ku nool ayaa dagaal nagu soo qaadi doona difaacaaga inaan ku dhammaanana diyaar baan u nahay dhaqaalahayageena inaan adiga kugu bixinno diyaar baan u nahe ma laga yaabaa nebi allow maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaabaa inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaa buu nebigu yihi ha ka yaabina buu yidhi halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan buu nebigu yidhi halkaad ku dhimataanna waa ku dhiman halka dhiiggiinnu ku daatana waa ku daadan dhiigaygu rasuulku yidhi waa bayca erayadii ansaariyi nebiga dhex maray siiraday ku taallaa addam alhadmu baa nebigu halka dhiiggiinnu uu ku daatuu dhiigayguna ku daadan halka qabuurihiinnu ay noqdaan buu qabrigayga noqon buu rasuulku yidhi inaan maka ku soo noqdaa oo tolkayniga soo raacaa ha soo dhiganina buu yidhi ansaaray waa ballan haddaad aniga maanta i qaadataan oo sida naftiinna iyo ubadkiinna iyo dumarkiinna cadowga aad uga difaacaysaan haddaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaan nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waan ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiiggiinnu ku daatana dhiiggaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinacay maraan ansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka ansaari ay martaan mari buu rasuulku yidhi waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg waad guulaysanaysaa ilaahay baa guusha ku siin doona annaguna difaacaaga inaan ku dhammaano diyaar baan u nahe maxaad noo ballan qaadaysaa noo sheeg wuxuu uhi jannaa nii ballan qaadi janno maxaa ka weyn bal sheega ma odhan madax baan niga dhigayaa
dhaqaalaan ini siinaya talada dabaday ininka nii dhiibaya ma odhan waxa uu nebigu yidhi waxaas waa adduunyo ka kaalay waxa uu nebigu u ballan qaaday inay janno wada heli doonaan ficlan nebigu ansaar uu u duceeyey sal alla alay wasalam gargaarka ay nebiga u gargaareen ee ilaahay rasuulkiisa u hiiliyeen ee diinta u gargaareen ayaa loogu magac daray al ansaar kuwii ilaahay nebiga u gargaaray baa loogu magac daray marka inakuna inaan diinteenna u gargaarna laynaga rabaa maanta oo aanan odhan xilka diinta culammada unbaa ka mas-uula macallimiinta unbaa ka mas-uula jamaacadda khaasa unbaa ka mas-uula may qof kastoo muslim waa shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa ood barataa waa waajib ku saaran oo ilaahay baa kugu addoonsaday inaad diintan shaqadeeda aad ka qayb qaadataa oo maalkaaga wakhtigaaga dhaqaalahaaga caqligaaga cilmigaaga wixii ilaahay salaaxiyad ku geliyey inaad diinta islaamka aad wax ka gashataa iyadana qiyaamaha waa lagu weydiin doonaayo ogow falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin baa ilaahay yidhi innahu ladikrun laka wa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun in sha allah dhahada inaan diinta ka shaqeyno wada niyooda in sha allah si fiican u dhahada dee haddana salaada loogu yeedho tawxiidka in ummadda la gaadhsiiyo dee insha allah firaaq markaan haysano muddadan 4 bilood iyo 2 bilood iyo 40 cisho iyo bisha fasaxaa tahay waa wasaa'ilu dacwa sida tacliimtuba wasaa'il u leedahay wasaa'ilu tacliim waa maxay waa madaarista manhajka madaarista waa wasaa'il weeyaan manhajkan cilmiga lagu dhiganayo mutuunta cilm almutuun iyo cilm almutawalaat marka dambe la galay waa wasaa'ilu lcilm wasaa'ilu dacwa imika aalaadkan imika aad naga duubaysaan waa wasaa'ilu dacwa waan ogolnahay ma diidanin laakiin jamaaca inay baxdo oo qaryadda jamaaca ku baxdo oo qaryadda dadka ay baraarujiyaan oo maqaayadda dadka ay u tagaan oo dadka salaada loogu yeedho oo taariiku salaaga gacanta la soo qabto waa wasaa'ilu dacwa bal taasaa asalkiiyo weliba nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam aalaadkan maanta innagu aan haysaneen dacwadda u kaashanayno hadday aalaadkan dacwadda ku fidayso nebi maxamed baa la siin lahaa laakiin nidaamka nebi maxamed ilaahay uu siiyey waa nidaamka ugu natiijo dhow in markaaba diintu caalamkao dhan gaadho waana nidaamkee waa nidaamka qofku inuu daalo ah inaad adigu daashid adiga dhaqaala kaa baxo maal kaa baxo wakhti kaa baxo dhiig kaa baxo dheecaan kaa baxo dhaqaala kaa baxo u dan sheegtid hur waxaad jeceshahay markaasaa diinta qiimaheygana aad garan dadka kalena diinta aad qiimahooga u sheegi karin hal qisaan niigu soo gaabin ninbaa oday inankiisuu damcay inuu jarrabo imtixaan uu ka qaado wuxuu yidhi aabbo dee 20 jir baa tahay 20kaa sano waxaanaad cunaysaan ilaahay anigoonbu iisoo dhiibo biilkayni siinaye maanta waxba ma hayo reerkii bahdi yareed waxba ma hayaane bal wax yar ii keen buu ka yidhi maanta orada ii soo xoogso wax ii keen ka yar waa ina hooyo weligii shaqo ma arkin adduunyo kama shaqayn hooyadii buu u tago hooyo lacag baan rabaaye isii buu yidhi imisa $10 waa hooyo macaan way soo saarta way siisay aabbihiibu u yimid oo wiil soo shaqeeyey buu iska dhigay aabba waa kan $10 ahoo wiina soo duceeday uu ka qaaday odayga markaa gargaradaba hortiisa dab ka baxaya bulbul markaasuu qaado isagoo arkaya buu ku riday $10 bul kii yaraa buu eego wax isbeddela yarkii yaraa kuma iman haddana maalin dambe yidhi bal maantana aabba waan ku sugayaa dee ducaqabaa tahee hooyadii buu tago ooye bal wax yar isiyo maxay $5 uu keeno aabba waa maasha allah fariid waaye isagoo arkay dabkii haddana ku tuuray haddana maalin saddexaad islaantii baa tidhi war lacagta baryahan aad iga gurta halkeed geysaa wuxuu yidhi aabbaa igu yidhi bal ii shaqo tago wax ii keeno dee hooye wax shaqo ma garanaya adigoo baan kaa qaadaa markaabeta dee muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dee inuu wax ku falayaaban moodaye gargaro hortiisuu dab ka baxyo buu ku tuuraa buu markaabee tiri war lacag la guba anigu ma hayee orad aabbaha u shaqo tago hay wareerina iga teg waryaa almuhim qola xaabo goreys u raacay xaabada see loo soo guraa matacbaa mise raaxo uu soo guray uu keenay
lacagtii buu soo helay uu keenay lacagtii buu u fiiqay baa la yidho aabbo markaabuu dhinacanna uu ka hayaa lacagta moogtahay odaygana uu eegay war maxaa jiray buu yidhi maanta aabbo lacagtii horeda way ka duwan tahay maanta buu yidhi oo kolkaana dee dabka ka daaday aabbo oo maxaan uga daayaa tii horeba soonii ku gurayey ma tii hore hooyaan ka soo qaadaya tan laakiin maanta anaa soo shaqaystay dee baad fahamteen baan u malay diin shayga qiimihiisa waxaad garan markuu dhiig iyo dheecaan iyo wakti uu kaa galo haddaad waxba gelin ma garanaysid qiimihiisa marka diinteenna macaan ilaahayna siiyey inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oon habeenka jimcahana markaska imanno oo masaajideennan maasha allah dhalinyar badan oo khayr badan baa ka dadaalaysa iyo macallimiin iyo culummo badane inaad dadaalkaa diinad inankuna qaybteenna ka qaadano wada niyooda insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf